magaciisu waa Bakistan ama Jamhuuriyadda Islaamiga ee Bakistan oo macnaheedu yahay marka loo bandhigo afka Urduga dhulkii daahirka ahaa. Bakistan waxay ku taallaa koonfurta qaaradda Aasiya. Waxay xad la leedahay India, Shiinaha, Afghanistan, Iran, dhanka xeebtana badda Carbeed iyo gacanka Cumaan. Iyada iyo Tajikistanna waxa u dhaxeeya marinka Wakhan. bedka dhulka Bakistan ayaa ah 881,913 kilomitir square, waana dawladda 33aad ee dunida ugu bedka weyn. dadka reer Bakistan tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 205 milyan, waa dawladda shanaad ee dunida ugu dadka badan. caasimadda dalkaasi waxaa lagu magacaabaa Islamabad. diinta ay dadka badankood rumaysan yihiin waa diinta Islaamka. heesta qaranka dalka Bakistan ayaa la yiraahdaa dhulka iyo dadka. luqadaha rasmiga ah ee dalka Bakistan waa Urduga iyo Ingiriisiga. Bakistan waxay xor noqotay kadib dadaalkii uu bixiyay Maxamed Cali Janaax sanadii 1947 iyadoo Bakistanna 1956 lagu cadeeyay dastuurkeeda inay tahay jamhuuriyad Islaami ah. dagaal sokeeye oo ka qarxayna waxa uu keenay in 1971 ay Bangladesh ka go'do. Bakistan ayaa maamul ahaan u qaybsantay 4 gobol oo kala ah Punjab oo caasimadeedu ay tahay Lahore, Sindhi oo ay caasimadeedu tahay Karachi, Khyber oo ay caasimadiisu tahay Peshawar, iyo gobolka Balochistan oo ay magaalo madaxdiisu tahay Quetta. lacagta dalka Bakistan laga isticmaalo ayaa la yiraahdaa Pakistan Rupee. calaamadda internetka waa PK. gawaariduna waxay isku dhaafaan dhanka bidix. nidaamka maamulka Bakistan waa jamhuuriyad federaal ah. magaalooyinka ugu caansanna waxaa ka mid ah Islamabad, Rawalpindi, Faisalabad, Bahlawal, Peshawar iyo Lahore. dhaqaale ahaan Bakistan dhaqaalihiisu mid gabi ahaan dalka kaafiya, wuxuuna ku tiirsan yahay deeq iyo deyn uu ka helo dalka Sacuudiga iyo wadamo kaleeto oo Carbeed. ciidan ahaan Bakistan waxay leedahay ciidan aad u xooggan oo ku qalabaysan hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear-ka.